Waa kuma George Weah. George Weah waxa uu ku dhashay magaalo isku raran ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Monrovia, halkaas oo markii dambe uu ka aaday qaaradda Yurub kana noqday ciyaaryahan caan ah. Kadib sanadkii 2017 ayuu noqday madaxweynaha dalka Liberia kadib doorasho laba ku celis ahayd. Haddaba sidee halkan uu ku soo gaaray George Weah? Koraanshaha Mr. George Weah. Magaalada yar ee uu ku koray Weah waxaa lagu magacaabaa Kalara, waxayna Monrovia u jirtaa meel loo soconayo saacad iyo bar marka baabuur la wato. Weah ayaa waxaa halkan geeyay waalidkiis si uu ula noolaado ayeeydiis. Xilligaas waalidkiis waxa ay ku noolaayeen degmada Grand Crew oo ah meelaha ugu faqrisan. Taariikhdaas faqrinimada ayaa taageerayaashiisa agtooda ugu noqday qof halyeey ah oo aad u dadaalay. Isaga oo yar ayuu bilaabay ciyaaraha kubadda cagta. Dadaal badan uu sameeyey ayuu ku gaaray heer ah inuu ka tago Kalara, noloshiisana isbeddel ku sameeyo. Xitaa waxa uu dhexda ugu tagay iskuulka si uu horumar uga gaaro kubadda cagta. Go'aankaas oo ahaa mid uu ku bulaalay, balse dhibaatooyinkii uu keenay markii uu damcay inuu u tartamo xilka madaxtinimada. Xiddiga kubadda cagta. Mustaqbalka George Weah wuxuu isbedelay markii tababare Arsene Wenger uu ku arkay isaga oo ka dheelaya dalka Cameroon. Maamulaha ayaa markii kadib Weah geeyay Yurub, halkaas oo u saftay kooxaha AS Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Man City, Olympique Marseille. Intii uu waqtiga socday, Weah waxa uu qaanadaha armaajadiisa ka buuxsaday abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee FIFA iyo abaalmarinta Ballon d'Or sanadkii 1995. Balse weligiis ma uusan halmaamin dalkiisii hooyo, kaas oo markaa ku jiray dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen dad gaaraya 250,000 oo qof. Mararka qaarkood jeebkiisa ayuu lacagta ka bixin jiray si xulka qaranka Liberia ay ugu safraan ciyaaraha dibadda. Weah waa muusikiiste hibo u leh, wuxuuna minhadda muusigga iyo heesaha ku laabtay sanadkii 2014, xilligaas oo isaga oo kaashanaya fanaaniin reer Ghana uu u soo saaray hees uu kaga digayo cudurka Ebola. Waxyaabaha yaryar uu sameeyey ayaa aad loo xasuustaa ilaa maanta. Mar ayuu noqday danjiraha hay'adda carruurta adduunka ee UNICEF, wuxuuna ka qayb qaatay arrimaha samafalka. Madaxweynihii hore Liberia Charles Taylor ayaa mar uga shakiyay inuu doonayo kursiga madaxtinimada kadib markii uu Weah diiday inuu wakiilka iska bixiyo xilli labada nin ay kulmayeen. Malaha taas waa uu ku saxnaa Taylor. Mr. Weah ayaa sameeyay xisbigii CDC wax yar ka hor doorashooyinkii 2005. Sanadkii 2007 ayuu sheegay inuu dhameeyay dugsi sare. 4 sano kadibna waxa uu ka qalin jebiyay jaamacad, isagoo qaatay shahaadada maamulka ganacsiga oo uu ka qaatay jaamacadda Devry ee gobolka Florida. Sanadkii 2014 ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Liberia, isaga oo ka soo galay gobolka Monastrado oo ka qayb tahay magaalada caasimadda ee Monrovia. Isla markaas ayuu u tartamay madaxweyne ku-xigeenka Liberia, balse kuma uusan guuleysan. Sanadkii 2016 ayuu ka dhawaaqay inuu mar kale isu soo sharaxayo xilka madaxtinimada, taas oo ay dad badan aad u jeclaysteen. Aakhirka sanadkii 2017 ayuu si rasmi ah ugu guuleystay tartankii labaad oo uu galay xilka.